يا من تلا قول النبي وبين لله صوتك بالهدى ما أحسنه. أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة. يا من تلا قول النبي وبين لله صوتك بالهدى ما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، daawadayaal kusoo dhawaada warbaahinta islaamiga ee Ihsaan oo insha Allah taala idin soo gudbin doonta barnaamij ramadaani ah oo ay marti inoogu ahaan doonaan culimo aad u fara badan oo kala duwanaan doona insha Allah taala. barnaamijkan oo maaragtay ugu magac darnay fi rihab Ramadan wuxuu noqon doonaa barnaamij ka duwanaan doona barnaamijtii hore aad uga barateen إحسان iyo guud ahaan maaragtay dacwada. insha Allah taala waxaan rabnaa oo ugu talagalnay in uu noqdo barnaamij kulansada maxaawir dhowr ah oo maaragtay culimadu ay soo jeedin doonaan. xalqadiisan koobaad insha Allah taala waxaa marti inoogu ah Sheekh Cabdixakiim Xasan Xuseen iyo fadil Sheekh Inshaar oo insha Allah taala inoo qaada dhigi doona maxaawirtii barnaamijka. kusoo dhawaada. barakallahu fiikum mashaayikhana, barakallahu fiikum. ramadaankii ayaa inoo bilowday. ramadaankii wuxuu kusoo hagaagay xilli ay xaaladdu ay kacsan tahay, caalamkii islaamka ahaa oo dhanna iyo weliba dunida guud ahaan ay uu saameeyay cudurkan loo yaqaano coronavirus-ka oo runaantii weli raadkiisa iyo saameyntiisu ay sii baahayso. marka insha Allah taala saameyntiisina waxa uu saameynta ugu badan uu ku yeeshay muslimiinta waxa weeye inuu ka hor istaagay cibaadaadkii caanka ahaa ee ramadaanka la gudan jiray. bal waxaan rabaa labada sheekh bal insha Allah taala in aan marka hore aan ku soo dhaweeyo bal si yara kooban soo dhaweyntan ramadaankan ku soo hagaagay corona iyo fikirkooda. tafadhal Sheekh Cabdixakiim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وأنا مهد علينا ميري إحسان يا عبد الحليم إنه ودنا وحيلنا نقبل يا بشر رمضان بركيسن وحي خيري وناق إنه نسيه وحي آفادنا وينجي إلى الله سبحانه وتعالى. ساو شيخ عبد الحليم وحيش كسو هذا بشر رمضان يوم مساجدي أو حرن يعذر داعي. waxyaalaha anigu aan isleeyahay marka madaxadaadka muhiimka ah oo runtii in xasuusinayso waxay tahay inaynu dib ugu noqono muraaqabatullah, maadaama masaajidu ay ahaayeen meel la isugu yimaado oo la isku arko. haddeerna guryihii la isku xiray, walacallo ilaahay inuu imtixaamayo markaynu guryaha keligeen ku nahay iyo markaynu masaajidka joognay keebaynu fiicnaan karna. ولذلك على القرآن كسبح كله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بيتون ما يرضون. يعني إله وحط الماما يا إن تران بني آدم كقريب كمذا وحمانتا لدونتا لكن ذكر لدونتا لكن إله أنك لدوما. مركز هذا قريه إني تجني حالدي إنه متى حالدي مركز المساجد تشوجني مسوا كفي عنته ما دام إله كليو إنه تشيد. هذا أنا أفرط سبحانه وتعالى ترني oon labadiisa quraan akhrin jirnay, oon ducaysan jirnay, oo salaatuleed tukan jirnay, oo sunnaysan jirnay, ma ka sii fiicnaanay laana hadda ilaahay inoo jeeda subxaanahu wa tacaala. marka waxyaalaha looga bixi karo xitaa cudurrada laftooda waxaa ka mid ah inaynu ilaahay tusno baahida aynu u qabno subxaanahu wa tacaala, inaynu ilaahay tusnayn isaga u baahannahay. haddii laakiin ay dhacdo inaynan ku baraarugin oo inta badan aynu ku mashquulno wararka iyo iclaamaadka oo aynu ilaahay hilmaanno, إله سبحانه وتعالى نقول هالمامية. مركب واحد وين سلايا وحويه إنه أجانو إلهي إنه فير سنايو مطالعة سنايو
sababtaasna waxaa weeye cidda keliya inaga nafici wax noo tari karta waa ilaah. ama xanuun ha naga qaado, ama caafimaad hana siiso, ama xoolaha hana siiso, arsaaq ha noo sahasho, awlaad ha noo barakaysto, dib masaajidda noola ku furo, inta waxay ku jiraan gacanta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. بارك الله فيكم شيخنا. انتهى وجود بين محاورته هاي فضيلة الشيخ بل رمضان كي وكسو هجاجي حلقان كورونها وقعد كأسامي ذاتك مسلم كا محل أدونا كلام. بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا إلهي سبحانه وتعالى وما هذا سكله إلهي أنا سو قارسي بشان رمضان بركيسن وكتير هوينك بركيسن وسودتي كتابك بركيسن runtii waa waqti qaali ah uma waxaan u mahadcelinayaa walaalaha had iyo jeer dacwada u taagan khaasatan muasasada ixsaan ee uu madaxda ka yahay sheekh cabdulxaliim sheekh yuusuf sayid aladhoox sheekha allaha barakeeyo runtii waa nin dhalinyaro ah oo sheekh ah oo nashaad badan oo dacwada wax badan u tara una taagan mar walba aad moodana inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku irsaaqay inuu himo iyo jacayl iyo kalgacayl mar walba u hayo. intaa kadib waqtiga hadda aynu ku jirno waqti iska xasaasi ah coronavirus waxaan u baahannahay inaan ogaano coronavirus masiibadii koobaad ee adduunka kusoo korodha ma aha. masiibooyinka adduunka weligood waa dhici jireen wayna dhici doonaan ilaa iyo qiyaamada. markii wax la arkana in la argagaxo ma aha. sababta nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay xilliga la gaadho aakhir zamaanka fitanka imaanaya iyo musiibaadka imaanaya inay midba midda ka dambaysa kasii daran tahay. marka ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa middan mid ka daran inuusan noogu bedelin. ta kale waa aaya min aayaati illaah. aayadaha ilaahayna waa kala waaweyn yihiin. waxaad ku garanaysaa inay kala waaweyn yihiin. hadda waxaa ka weyn coronavirus caalamka hadda dhibka uu ku hayo cabsida uu ku hayaa ka weyn. adiga coronavirus cabsidiisa waxaa kaaga daran inaad dhimataba. marka adiga haddii malaria ku dishay iyo hadduu hargab ku dilo hadduu coronavirus ku dilo waa isku mid uun geeridu waa laa maxaana mar walba waa la dhimanayaa. xagga kale waxaynu arkaynaa mar walba in dadku ay aada u murugelinayso furaskii dacwiga ahaa, furaskii tijaariga ahaa, furaskii safarada, furaskii faraha badnaa nicmaadkii in la dareemay. taa dareenka marka la dareemahayo iyo nimco kala ah iyadoo lafteeda nimco kala ah. waayo nimcada ilaahay subxaana wa tacaala markii lagu qabsado unbaad ogaani, markaad weydo unbaad garanaysaa. marka kullu niqma lahaa nicma, kullu nicma lahaa niqma. marka niqmo kasta ama balaayo kasoo timaada nicma ku hoos jirta. nicmooyinka ku jira waxaa ka mid ah wax badan oo fasaad ahaa ayuu koronuhu shafka dhulka u dhigay oo aamusiyey oo maanta aan la isweydiinaynin. waxaa ka mid a isasalaankii iyo xabadkii la isa saarahayey iyo afkii gaaladu iska dhuuqaysay iyo balaayooyinkii iyo dacaaraadkii iyo qaybihii muslimiinta ay kusii biirahayey barnaamijkaas ee aada u xiiseynahayey oo aayar bireega un loo qabtay oo wax yaroon laba arkaynin lagu salladay. marka nicmooyin fara badanna waa leeyahay. waxaa kale ilaahi subxaana wa tacaala dee wuu ina imtixaanaya, wuuna sheegay inuu ina imtixaani doono. oo ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ma kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayh xataa yamiiza alkhabiisa min aطayib xasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun. waxay u malaynayaan in lagu daynayo mu'miniin baan nahay bas intaa lagu daynayo may u malaynayaan maya. midda kale ilaahi subxana wa taala wuxuu inoo sheegay mu'miniintu xaaladda ay markaa ku sugan yihiin loo dayn maayo iyadoo dadkii mu'miniin wada yihiin bay haddana waxay yihiin khabiis iyo ayib. marka waa la kala saari, khabiidka ayibka laga saaraya. marka waxaa layna fiirinayaa sida hadda sheekh cabdixakiimba uu sheegayay bal xaalkeenna la fiirinayaa. masiibooyinka adduunka soo maray waxaa ka mid ahayd geeridii nebiga calayhi salaatu wasalaam waana masiibadii ugu weyneyd caalamka soo marta. markay argagaxeen saxaabadii waa kii cumar yidhi amiirulmu'miniin carwa ninka yidhahda waa dhintay wir. abubakar unba aaya u yimid aayad yar unbuu ku akhriyey kadib markii iska degayba wamaa kaana muxamedun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul afa in maata aw qutilan allah subxaana wa tacaala soo ma arag
marka hadduu dhintay nabiga calayhi salaatu wasalaam war qofkii ilaahay caabudayo dee ilaahay waa joogaa qofkii nabi ilahi maxamed caabudayona teg rusushii ka horreysay waddaday mareen buu maray hadda qofkii dee masaajidda dadka ku dayan jiray oo safka hore uu ku samayn jiray izdixaam iyo ciriiri ku samayn jiray oo maaragtay koofiyada dheeraysan jiray oo haddii ilaahay kuusama ogol yahay soo kallihi jiray oo mar walba ka muuqan jiray gurigiisana waa lagu fiirinayaa marka waa layna kala eegayaa waa la fiirinayaa bal sida aynu nahay inaan ilaahay subxaana wa tacaala caabudaynay iyo xaalkeena midda kale inta badan waxaa ka mid a nicmooyinka u baahan inaan xusuusanno ummadihii innaga inaga horreeyey meelaha ilaahay ugu talagalay inay ku cibaadaystaan hadday waayaan bas cibaadadaas kama ansixi jirin toobadna lagama aqbali jirin laakiin innaga dhulka oo dhan masaajid gurigaaga cibaadadaas ku samaynaysa kii kale masaajidka ku samaynaysa labadiiba cibaadada waa laga aqbalay labadaba haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu doono camal saalixana uu noqdo asbaabtii iyo shuruudiina alla timaad marka الله فيكم شيخنا وبارك الله فيكم وقول لك هذا قرف بدون وي marka insha Allah taala jalasaadkan waxaan ugu talagalnay bal dadkii in ay maadaama khayrkii masaajidda uu ka xidhmay bal inaanu khayrkii dadkii wali la sii wadaagno baraha bulshada iyo meelaha ay dadkii hadda ku soo hadheen insha Allah taala ma dhowr maxwar baanu مجلسكنا كقاعدة دقيقة محور كود وحاول محور تدبر آية من آيات الله أو من آية في كتاب الله عز وجل مركا الشيخ عبد الحكيم ومحي آية دا سلاذة هي ودور بداي أو ضغوط لقى شيء ضدك داو ضياشة وسلاذة هي وينك سوت شيء ذاتي وقفة يتأملنا وكل أنصت بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ عبد الحليم أنوغو سانكو بلاوي runtii imtixaankan ina haystaa ilaah way nagu fiirinaya marka aayadda ilaahay uu fi suurati nisaa ku tilmaamayo yastakhfuuna min annaas walaa yastakhfuuna min allah wa huwa macahum id yubayituuna maa la yardaa min alqowl wa kaana allahu bimaa yacmaluuna muxiita ilaah wuxuu ka warramay weliba uu qaab canaana uga warramay sinfi ka mid ah dadka bini aadanka ah inay xumaanta kala dhuuntaan bini aadanka kale laakiin ilaahaygii abuuray aysan kala dhuumanayn marka maadaama inagu hadda meel la isugu imanay lagu kala tegey qof kasta gurigiisa galay aan cidina arkaynin qofku xaaladeebuu ku noolaanaya ma xaalad uu ilaahay ka xishoonayo mise xaalad uu bini aadan ka xishoonayo ilaa marka wuxuu tilmaamayaa suurtagal miyaa in ilaahaygii daalacanayo u jeeday aysan ka dhuuman laakiin bini aadan ka dhuuntaan aayaddaas marka waxay tilmaamaysaa qofka muslimka ah noloshiisa inuu ogaado cidda wax tari karta ama anfici karta ilaah inay tahay oo nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markuu tilmaamay wuxuu lahaa alladii khalaqanii fa huwa yahdiin aniga cidda ay abuurto ee hanuunin karta waa ilaahay uun waaladii huwa yudcimunii wayasqiin haddaan u baahdo cunitaan iyo cabitaanna ilaah baa ii haya waidaa maridtu fa huwa yashfiin marka ilaahaygii intaa kuu hayay miyaadan ka xishoonayn oo bini aadan aan waxba kugu tari karin baad ka xishoonaysa aayaddaas marka waxay tilmaamaysaa runtii in qofka muslimka ah uu ku noolaado in ilaahay uu jeedo dhinaca kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay xadiiskii thawbaan ee sheekh albani saxiix yeelay jaamic saqiirka in uu maalinta aakhiro arki doono dad badan ummaddiisa ka mid ah oo acmaal waaweyn la yimi oo buuraha laala eg waaweyn intihaama fayajcalaha allahu habaa'an manhuura acmaashii oo inay la yimaadeen baddaa la baabi'inayaa thawbaan oo raawiga xadiiska wuxuu leeyahay rasuulka ilaahayow man hum dadka noocaasu intay acmaal la yimaadeen haddana acmaashii la baabi'iyey si aan isaga ilaalino ama aanan u noqonin anagoo ogeyn aan ka mid nahay dabeedna nebigu u sugaabiyey wuxuu ku dhahay waa dad idinkoo kale ah walaalihin weeye saa u cibaadaystaan ya'khuduuna min alleyli kamaa ta'khuduun intaasoo wanaagaa loo sheegay nebigu marka wuxuu daba dhigay walaakinahum qowmun idaa khalow bimaxaarimi illaahi intahakuuha laakiin waa dad haddii la keliyaystaan maxaarimta aan u aabayeelin marka waxay ina xasuusinaysaa arrintan sheekh cabdixaliim in aynu nafteenna dib ugu noqonno oo dulmigii iska ilaalino oo xaaraantii iska ilaalino oo khiyaanadii iska ilaalino oo ribadii iska ilaalino
oo aynu ogaano ilaahaya keliya waxa inaga qaadi kara iyo xaaladda aan ku jirno ama xitaa acmaasheenna aan samaysanayna ee soonka iyo sadaqada iyo qur-aanka iyo waxaa noo barakeyn kara in maxaarimtii laga fogaado intaas marka بارك الله فيكم شيخ عبد الحكيم رنانتي وآيات ماركتي ميسان علوس كفردو oo tilmaamayso dadka qaarkood dhaqankoodu inuu isdooriyo marka ay dadka la joogaan iyo marka ay kaliya ay noqdaan oo ay dadkii ay ka fogaadaan ما شاء الله فضيلة الشيخ إنشار آيات marka isleedahay waad jeclaysatay inaad bal maanta dadka la wadaagto oo isleedahay tadabbur iyo waqfatu ta'ammul ayaa ku jira 10 daqiiqo 10 daqiiqo ما شاء الله الله يبارك فيك شيخ عبد الحليم runtii aad baan u faraxsanahay inaad mawduucan ku bilowdaan tadabburka aayadaha qur-aanka kariimka ah sababtoo ah waqtiga calaaqa la leh qur-aanka waxaynu ku jirnaa shahru lqur'aan qur-aankuna waa cilmigii oo dhan aayad kasta oo aad soo qaadatana aayadda kale waa ka qiimo badan tahay waxaan dhihi lahaa aayadaha markaan marahayo aada iyo cajabgeliya aan isleeyahay acmaasha bishan ramadaan dhexdeeda aynu u baahannahayna kuwooda waaweyn bay tilmaamaysaa ama 3 ka mid ahoo kuwa waaweyn ah bay tilmaamaysaa qof walbana wuu u baahan yahay in uu ka sahay qaato waa aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala fii suurati faatir uu ku tilmaamay ee rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay ina aladiina yatluuna kitaaba allah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله الله سبحانه وتعالى وحكت المامي آيادا 3 قاعدة ووين أي كت المامي حالة هذا أن كسرنا هي أن نقريها فردنا و3 شيء ولو baahan yahay inaynu istiqlaalo ka faa'iideysano runtii ta koobaad waxay tahay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay 3dan amal dadka laga helo waxay leeyihiin badeeca aan baaraynin bimacnaa ma khasaaraan aakhira iyo adduun midnaba qaybta koobaad waxay tahay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay innal ladina yatluuna kitaab Allah kuwa ilaahi subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa akhriya marka kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa akhriya kitaabkan la akhriyahayo ayaa u baahan ee aan lagu khasaaraynin maxaa ku dhex jira kitaabkanu wuxuu tilmaamayaa waa nuur mugdiyadu kaa saari mugdiga jahliga mugdiga dulmiga mugdiga shirkiga mugdiga xiqdiga mugdiga xasadka mugdiga xumaanta oo dhan mugdiga bidcada waxaasoo dhan buu kaa saari wuxuuna kuu saari nuurka ظلماتك وبدنيه نوركنا وهل ومثل الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سواء أنت أنا موجناها أي آيات بدن وهذا وقت وسنة سامحين بين وقت المامي إنه نور يها القرآن وحكم رب سبحانه وتعالى إنه ليه مركو كهلا هي في سورة الطلاق آخر كذا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله لكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور الله سبحانه وتعالى حليه والرسول إذن كو أخرنا يا آياتها إلهي عد مبينات كأه وحونا إذن كو أخرنا يا إنو إذن كسار مقدية وإذن كو سار نور كإذن كو سار ضدك وحا الله سار هيانا وضدك أعماش صالحة ليمد إيمانك ليمد وي آياتك الله سبحانه وتعالى وحليه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله سبحانه وتعالى آياتك لا وحكوت المامية وأيضا التلمامية إنه نورك الله سبحانه وتعالى ضدك مؤمنين وصارها بل الساقي بقى السوء في رب سبحانه وتعالى إنه يساقوا مجدي كساره والنور كأساره الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور كتابكم وحكو دحجرة الله سبحانه وتعالى وحنو شيغي إنو يهي
nolol laftiisaaba ruuxaba waa naf weeye marka qofkaan qur-aan ku jirin oon qur-aan garanaynin oo aan ku camal falin qof nool ma ah wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina buu leeyahay rabbi subxaana wa tacaala annaga waxaan kuu waxyoonnay ruuxan min amrina subaare ruuxan min amrina sidoo kale allah subxana wa tacala wuxuu tilmaamayaa qur-aanku inuu yahay caqli markaad doonaysa inaad caqliyaysatood wax kala garato qur-aankaad baran waad ku tadabburi waad akhrini waad u fiirsani allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay inaa anzalnaahu qur'aanan carabiyan lacalakum tacqiluun inaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan lacalakum tacqiluun allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wa qur'aanan waa kitaab aanu soo dejinay qur'aan carabi ah si aad wax u garataan caqli si aad u yeelataan si aad u caqliyaysataan somaali qur-aanku ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay hala akhriyo allah subxaana wa tacaala uu leeyahay waa barakaysan yahay waa kitaab barakaysan marka caqligaa kuu barakoobi oo cilmigaa kuu barakoobi oo awlaaddaa kuu barakoobi oo asxaabtaa kuu barakoobi oo ehelkaa wax walbaa kuu barakoobi inuu barakaysan yahayna ilaahay subxaana wa tacaala iyadana aayado badan buu kaga hadlay oo ay ka mid tahay fi suurati ancaam allah subxaana wa tacaala uu ku tilmaamayo hada kitaabun anzalnaahu ilayka hada kitaabun anzalnaahu mubaarakun musadiqu aladii bayna yadayh ama allah subxaana wa taala isla aayadii kale hada kitaabun anzalnaahu mubaarakun fattabicuuhu wattaquu lacalakum turxamuun allah subxaana wa tacaala kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ululalbaab xaggana waa kitaab barakaysan wey kitaabku waa kitaab barakaysan wey soo maarag allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waa kitaab xaq iyo baadilku kala cadayn wuu ka hanuuninoo waddada sacd uu kuu jeedin waa bishaaro waa raxmad waxaan meel kale lagama helaba waa kitaabka ilahi subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay wahudan waraxmatan wabushraa lilmuslimiin buu leeyahy rabbi subxaana wa tacaala soo maarag qofka ka jeedsadana rabbi subxaana wa tacaala wuxuu sheegay nolol cidhiidha inuu ku noolaanayo rabbi subxana marka kitaabku waa kitaab saa u barakaysan jumlada labaad allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahy aqaamu salaata salaada ooga marka salaada la oogo faa'iidooyinka leedahay waxaa ka mid a qofka salaada tukada ee sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u tukan jiray u tukada iyadaa waxay ka difaacdaa xumaanta aqimi salaata allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ina salaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar iyadaa kaa reebaysa ta kale wuxuu leeyahy rabbi subxaana wa tacaala waxay tagsiisaa xumaanyaalkay tagsiisaa xasanaadka tagsiiyo xumaanyaalkay ka mid tahay aqimi salaata طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين بالله رب سبحانه وتعالى سبحانه الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون في سورة اللقمان الله سبحانه وتعالى مركز صلاتنا qiimahaas uu ku sheegay iyadoo kala googooni oo salaada sida salaada subax oo kale wuxuu sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka tukada inuu fii dimati illahi ku sugan yahay ilaahay subxaana wa tacaala qofka magantiisa qaadanayo ilaahay u raacayo magantiisa ka gudanayo marka salaada oo la oogo wax ka qiimo badan ma jira bal waxaa axaadiistu tilmaamayaan qofka hadday salaadu u hagaagto inta kalena waa u hagaagaysaa bal ahamiyadda leeda waxaa kutusaya qofku maalinka qiyaama meeshuu lugaha ku hayo ka qaadi maayo ilaa uu ka jawaabo salaada somaarag marka salaada fadaaisheeda iyo qiimaheeda wax la soo koobi kara ma aha waxaa ka mid ah salaada sunnada ah ee hadda xilligeedii aan joognay aad loo badin lahaa ee salaatuleylkii jannada lagu galaa waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu leeyahay intuu tilmaamay dhowr waxyaalood oo infaaqu ka mid yahay oo waxyaalo badan ka mid yihiin intuu tilmaamay ayuu wuxuu ku daray tukada markay dadku hurdaan tukada wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam jannadaad gelaysaan idinkoo nabad qabaa oon cadaab idin taabanin qodobka ugu dambeeya waa qodob cajiib ah waa qodob isaguna calaaqa lale xilligan aan joogno waa sadaqadii waa infaaqii marka rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waa kuwa bixiya waxa ilaahay siiya wax ka mida si muuqata iyo si qarsoon labadaba arrintan iyadu waa arrin cajiib ah waxyaalaha marka lagu leeyahay wax sadaqayso waxaa lagu leeyahay waxaagii bixi waxbaa lagu siinay marka intayda baa la ii daayo aan iska haystee waxaan lagugu daynaynin intaada waxaa laga yaabaa inay wasaq ku dhex jirto marka intan wax si ka yihiin iska bixi in nadiifaa lagu siin ta kale intan in ka badan baa lagu siin
تكلا آخري الدوم ويكون فيعي أنت أنا هيست الدوم ويكون فيعي هذا مرة بتكون قريني لكن هذا الله بحضه كان لقيها بينك وجيسو وحكمنا الفوائد إلى هاي صدقة الله بحيو إلهي سبحانه وتعالى وحو الشهاي إن يتعدين سجل السيء كده نوحو الشهاي إلا بدين أيو وحونا تلمامي أسباب تلقوا بدين أيه هذا نوحو الشهاي بدك إن قارنا اللي يرى حولها قارنا الله بديو قارك الله بدين أيه السبب كل اللي بدين أيه وشهاي لكن قارك اللي عيدي هايو السبب كده اللي مشيين بركو حتى كجرنا وقلا وضنا كله حتى الله سبحانه وتعالى وحليه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون بالله رب سبحانه وتعالى سوى الله بها ينتهي إلا أكتاب ونوشة مثل الذين ينفقون في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله سبحانه وتعالى وحنوشة آيات كدن بيس وحيالها الصدقة اللي جابت بعده قفك الصدقة عاديسته صلة الرحم ككبحية meelaha loo baahan yahay ku bixi fi sabiilillah ku bixiya laba shayna ka ilaaliya oo ah alman wal ada ka ilaaliya wuxuu ka nabad galaa laba shay waa maxay al khawf wal huzn Allah ka nabad galaa murugo iyo cabsi inuu ka murugoodo waxa uu soo dhaafay iyo dhibaatooyin ku dhacdo iyo waxa soo socdo aakhira inuu ka walwalo ka cabsado midna kuma dhacayso Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay aayada ka dambaysa alladina yunfiquna amwalahum fi sabiilillah ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحانك ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بالله رب سبحانه وتعالى إسلا آية سورة البقرة فراها بدنا يسكو حقوقا صدقة آد وغاها الله إلهي سبحانه وتعالى وحكم إذا آيات داس آياتها كالدنبايا قيبت الدنبايا دور آيات حيثه ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير بالله رب سبحانه وتعالى حلم تعبير مال سركوتها الله قفك حولها إلهي درت أبحيي وعنداتك قوينين ومبيه دردرين ومال أنبيه كان ورابيصو daadkuna uusan goynaynin miraha ka soo baxana juuda ay leeyihiin ku taala ayuu ka dhigay Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida kiri ama haduu shuux ku daaxida marka way mataanay haduu shuux ku daana xitaa way soo bixi walaha kale iska daay Allah subhanahu wa ta'ala aakhirka wuxuu ku tilmaamay aayadaha uu kaga hadlay Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalka iyo hadii la bixiyo faa'iido uu leeyahay alladina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniyatan wa lahum ajruhum 'inda rabbihim ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا وحلا سو كوبي كرما وحا كميدا صدقه فايدooyin kay leedahay naarta laga fogeeyaa inuu gala iska daahda inuu gala ma qorada laga fogeeyaa naartu ku jira qofka xoolaha bixiya isagoo ilaahay ku raali gelinaya wax abaalana aan ku doonaynin qofka bixiya ilaahay wuxuu inoo sheegay inuu naarta ka fogeeyo markuu ilaahay subhanahu wa ta'ala fi suurati al-layl ka hadlayay dadka la cadaabayo iyo qaabka loo cadaabayo inay ashqiya ay yihiin Allah subhanahu wa ta'ala markuu naarti sheegay wuxuu yiri wasayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wama li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la wala sawfa yarda bi rabbi subhanahu wa ta'ala Abu Bakr bi kusoo degtay baa la yiri laakiin qof kasta wadada qaada wuu ciirsan karaa meesha cid ka hortaagan ma jiro Ilaahay subhanahu wa ta'ala rahmadiisu waa waasa waxa kamida intuu adduunka joogo ayaaba waxa loo sahlay wadadii uu jannada u mari lahaa waxa kale oo loo sahlay umuurtiisa adduunka waxa kale oo loo sahlay wax kasta ku adkaan lahaa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra Allah subhanahu wa ta'ala soo maaragtay ka kala meesha laga adkeenayo marka aayadaas oo runtii isleeyahay waxay u wantahay qawaacid aad iyo aad u badan oo waxaan dhihi lahaa maadaama shahrul qur'aan joogno bal qof walba meesha joogtiyo gurigaaga kitaabka kala fur marka bishan ma aha kitaabka inaad akhriyo 5 jeer baan dhameeyay 2 baan dhameeyay 3 baan dhameeyay meehe markay bishu ku dhamaato waxaad ka faa'iiday quraanka maalin walba meel ku qoro marka waxaad tiraahdaa قسيبلان كفائدي آيات هبلان وحسن كفائدي تسكان وحسن كفائدي لك كفائدي إن شاء الله جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم maantii waa aad iyo aad aayad maaragtay u qiimo badan oo
كل صفة أحكام فربضان يماركني هنوني فربضان إن شاء الله تعالى نحن كاسيان نحكو بينا وحان إن شاء الله وجود بينا مكوح كلا طبق على برنامج وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طورا باسما وعززت ثم بدت عليك المسكنة متفاخرا حينا بسنة أحمد متناسكا حينا بنفس